السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة كحرن برطيت يو English teacher waxaan halkan ka soo gudbinayaa casharkii labaad ee anagu talagalay inaan ku bixiyo free English course possessive adjectives waa casharkan maanta wada horena waxaan u dhigay English alphabetka marka qaadato waxa ku xigo waxa ugu muhiimsan ay taa qofka inuu luqadda ka fahmo waa possessive adjective-ka haddii uu fadhiyo waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka fahmi doonto luqadda. Possessive adjectives-ku maxay yihiin marka? Waxaan leenahay possessive adjectives words waa erayo. Possessive adjectives words waa erayo that kuwaasoo show muujiya ownership milkiyad muujiya oo possession ama lahaansho muujiya. isku mid waaye labada erayga possession iyo ownership. They are placed waxaa la dhigaa before a noun magac hortiisa to indicate say u muujiyaan that the noun in magacu belongs to someone uu leeyahay qofka oo something ama shay uu leeyahay shaygan qofa iska leh qofka iska lehna inaad fahanto oo possessive-kaasi eragaas qofka u taagan yahay aa fahansantahay deetana shaygan qof hebel iska leh inaad ka fahanto waxa akhrisay. So possessive adjectives-ka waa erayo muujiyo lahaansho. Good. waa tiradeedu waa imisa? Jawaabta waxaan leenahay waa 7 eray. waa my wixayga tilmaamaysa iyo waxaaga ama wixiina dad badan oo ku hortaagan waxay leeyihiin his wixiisa. hal gabar waxay leedahay hal wiil wuxuu leeyahay ha. eragaas ha ayaan u akhrinaynaa waa gabar waxay leedahay hal gabar waxay leedahay. It is wixeeda. Our waxeena. Their wuxooda. Good. marka si uu fahamku u fiicnaado aan marka la ku celiyo tusaalena aan ka bixiyo mid kasta dhowr tusaale ayaan gelinayaa si fahamka uu nadiif u noqdo. My wixayga yo waxaaga his wixiisa waa hal wiil wuxuu leeyahay ha wixeeda hal gabar waxay leedahay. It is xayawaanaadka iyo waxyaabaha ashyaada waxay leeyihiin sida guriga daaqadiisa oo kale. It is window oo kale something saas camala. Our waxeena wixii naga wada dhaxeeyo. Their wuxooda dad badan waxay leeyihiin adiga aadan waxba ku lahaynin. Good. waxaan rajeynayaa inay ku jilacsan tahay. waxaa timaadaa tusaalooyin. waxaan sameynaynaa marka tusaalooyinka hadda 2 xabo bis ayaan casharka maanta rabaa inaan ku bixiyo. casharada xigana waxaan rabaa inay noqdaan mid kasta oo tusaale intaan ka badan inaan soo geliyo. ila soco marka. My imaw groupka my wixayga waa af Soomaali ahaan my book buugayga. marka af Soomaaliyeena marka shay oo adjective leh English iyo Soomaaliga cagsi ay isku yihiin. Possessive-ka laga bilaabaa Soomaaliga oo lahaanshiha iyo ka bilaabaya Englishka lahaansho ka bilaabaa wuxuu ku soo xijinaa magaci la lahaa. halka Soomaaliga markii la sheegayo magaca laga bilaabo ee xagga possessive-ka loo kaxeeyo ama loo wado. tusaale my book dhawaq ahaan waxa ku soo horeeya my afkeyga ka bacdi book ku xigo. laakiin Soomaaliga black buuga ku horeeyo waxaan leeyahay buugayga. Okay, my book buugayga. My car gaarigayga. My keys furayaashayda. My hair tintayda. My friend saaxiibkayga. My room qolkayga. My bikes baaskiiladayda. Excellent. warkaas waa nadiif dabcan waad fahmi kartaa. yo imaw yo waa waxaaga
adiga i hortaagan waxaa leedahay erga yoo marka gabar kaliya uma xadidna wiil kaliya uma xadidna dad badan uma xadidna wixii kala soo hor yimaadaba waxaaga markaa rabta inaad tiraahdo ama wixiina yoo iska isticmaal yoo buug buuggiina yoo kaa gaarigaaga hal xabale ka dhig yoo keys furayaashaada yoo hee tintaada your friend saaxiibkaa your room qolkaaga your bikes baaskiiladaada your bikes baaskiiladaada okay waxaan rajeynaa inuu okay yahay good mar kale aan ku celiyo possessive adjectives possessive adjectives sifooyinka lahaanshaha tusaaleeya possessive adjectives sifooyinka lahaanshaha tusaaleeya possessive adjective maxay yihiin marka possessive adjectives are words erayo waaye that kuwaasoo show muujiya ownership milkiyad muujiya oo possession isku macno waaye lahaansho muujiya they are placed waxaa la dhigaa before noun magac hortiisa to indicate say u muujiyaan that the noun magaca belongs to inuu leeyahay to someone or something qofkii lahaa si loo caddeeyo aa la isticmaalaa tusaale ereyadaas marka meeqa eray waay waxaan leenahay waa 7 words 7 eray waay 7 words my wixiga your waxaaga his wixiisa her wixeeda itis wixeeda our waxeena their wuxooda erga imaaw waxaa timaadaa my oo tusaalooyin badan la geliyey my book buuggayga soomaaliga ingiliishka cagsi isku yihiin markii la fasiraayo soomaaliga buuggu ka bilaaba lahaanshaha xaggeeda u wadaa my book buuggayga my car gaarigayga my keys furayaashayda my hair tintayda my friend saaxiibkayga my room qolkayga my bikes baaskiiladayda excellent waxaan rajeynaa inuu okay ku yahay your book buuggaaga your car gaarigaaga your keys furayaashaada your hair tintaada your friend saaxiibkaaga your room qolkaaga your bikes baaskiiladaada